لكن ما توحى للربي أو برطمانات وهاي إلى درجة إنها اللي قرد أدي سنة ترى أدي حلبان الله أدي من حوينا الله ده نكو ما أنت إنها نقدر هاي إلهي نكها تور رحمة وحفظهم بالله قبتي سقف حلو قبتي جيس إني ماله أنا أسوي حقول الأورجاني أصوص على محو هاي صاد على ماشان أو بدأ حد يقول بكسله إسلام مركب قاري لبودي أو فري على فراي قلت إيه قاتو لبودو قاري كركور كي قرح كدعي mid ka mid ah askartii ka badbaaday weerarkii ballaarnaa ee lagu doonayay in lagu shirqoolo madaxda galmudug ee ku matasha federaalka iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug qoorqoor ayaa banaanka keenay xog iyo sir lama filaan ah dhammaantiin si degan u daawada muuqaalka askarigan oo ka mid ah askartii dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii maantay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen dhammaantiin si degan u daawada muuqaalka dhammaantiinna sii sheergareeya lana wadaaga saaxiibadiina ku mahadsanidin waxay wax u dhaceen meeshan markii 12 barkii ay ahayd ayaa madaxdiina diifaan saraakiishiina joogaan senataradii xildhibaanadiina guri ay ku jiraan ayaa waxa ku soo dhawaaday gaari qarax wada jagboontiyo badan oo soo dhaafay siyaabo ku soo dhaafay ilaa hadda baaritaan ka socda aniga iyo yartaan isqarxinayo yartaan qaraxa isku dhigayo oo Ahmed waa isku dhaweyn waa aragnay anaga baabuurkii yarkii baabuurkii la booda baabuurka la saarnay baada baabuurka goorgeeyay meesha qaraxa ka dhacay qasaaro badan dhacay gawaariya gubatay ciidamo badan dhaawacmay dhaawac badan oo aan dib badan ayna aniga laftigeeyo soo gaaray hada meesha waxa ninka qaab oo afar degmoonti u dhaxayda afar degmoonti qaab uu ku soo dhaafana ma garan karno waxyaalaha oo dhacayna wax weyn ay qaraxa qarax weyn wada oo miisaan culus madaxdii ilaahay mahadiis madaxdii waxa ma gaarin sanadkan cabdi qadiid ayaa wax yar oo duga gaartay ciidan badan meesha waa ku baaba'een laakiin maanta waxa la rabay oo bartilmaameed ku hay ila dargid inaa laga rida adii sanatarada adii xildhibaan Allah adii madaxweyne leedahay madaxweynaha oo caafimaad qaba laakiin meesha waxa ka dhacay halis weyn baa ka dhacday hadda aniga laftigay wax yar baa soo gaaray oo hadda xamar baa loo qaaday guriga loo gurmatay waxaan meesha qasaaro weyn ka dhacay oo baabuurkaas inuu soo gudbo oo soo gaaro heerkaas wax baaritaan ka socdo way si guud muuqaal guud naga sii ninkan badbaadinaya madaxda halkee ayuu ka soo jeedaa waa ninka wada argidiro sargaal oo dawladda ka tirsan wuxuu ka soo jeedaa goboladan waa ninkan naftiisa waa nin geesiya Allah yarham madaxweynaha galmudug bilgeesi oo labada wiil ku abaalmariyay hada bilgeesi waxa ma tagtay ninka inuu ilmihiisa iyo dadka uu ka tagay xaqiiqsan muhiim ah dinku maanta indhaha naga dheeraay ilaahay ninka taw raxmado wax badan buu noo qabtay saqaf xal uu qabtay geesinimo leh muuqaal guud ma ana waraysan aniga asoo waxa ku yiri wargaariga soo saaro muxuu ahay soo dhaafay meeshan oo madaxdii gurigooda ku soo dhow isla markiiba gaarigu la booday oo furaay gantay iga qaato la boodo gaari karakoor kee qaraxa ka dhacay ambaarna waa soo sanayno wax meesha ka dhacay laakiin nooka dhaqamadii lagu yaqaan ma aysan sameeyno markay meel qarax kurigaan xabado dad ordaayo ma soo aadi karin dad oo meesha ciidan xoog loo miisaan la fadhiyay waana madaxda waa loo fadirin waa meesha loo fadirin waa ninka wuxuu sameeyay Allah yarham muuqaal guud naga sii geesinimadiisii qaabku ma taqaanay gaariga ugu dhaqaaqay meesha aad taagneedeen inta u jirtay madaxda muuqaal guud oo dadka u sharax qaabka sida ay wax u dhaceen meesha madaxda deganaayeen waxaan u jirnay ilaa 10 tilaabo ilaa 10 tilaabo baa wadax u jirteen madaxweynaha galmudug iyo madaxdii kale ee xildhibaanada iyo senatarada ahaa guriga jiifeen marka waxa ka dhacay baabuurka soo saaray muxuu markaa iri ninkii gaarigu inta ku boodo la cararay oo meel aniga laftigeeyo 10 tilaabo u jira meesha madaxda joogaan 10 tilaabo meel ii jirto gaariga loo rogay buu ku dhuftay gaariga waa ku dhuftay
waxaa wax lala yaabaa oo lala anfariida gaariga intaas annaga labadeena iska wareysano jagboontiyadu soo dhaafay wax iska wareysan lama arkin gorgor meelay deganeedii ayuu soo dhaafay baabuurkaas taliyaha hay-adda nisa mahad salaad isagoo halkee markaas ku sugan yahay maanta xal uu ka tegay